doontan iyo muuqaalka iiga muuqanaya iyo in halkan lagu sameeyo doonyo yaryar oo feebar galaasoo yaryar baan meelaha kasoo gadan jiray kalluunkana doonta alwaaxa iyo barafka in la qaadiyo in lagu qaboojin loo sameeyo inta way nagu cuslayd laakiin waan ficlan shirkadaas saaxiibkay iyo shaqada ay qabteen aad baan uga mahadcelinayna waana rajaynayaa inaan ka raysan doono mashruucaana la ballaadhiyo waxaan ka xumahay hadda dhalinyaro yaryar bay ahayd dadka hadda wax baranayaan soo maray intii waaweyneed malaha feebarkay ka carartay iyagana in lagu dadka aada loogu dhiirigeliyo barashada sababtoo tan waa asad oo waxaan u baahannahay meelo fog baa laga raadsanaya hadda waa dhaweydan dooyo u baahnay cumaan iyaan ka hadlaynay laakiin hadda doontaan u baahana xataa haddaan costi gaarka u baahno dooyo dhisaankaan idin keeni doona idinkaa samaynaya oo qaabkaan u qabno waan aad baan idinka mahad celinayaa mashruucana waxaan is leeyahay wuxuu noqonayaa mashruuc midho dhala waxaan nahay dad qani ah oo xoolo haysta haddana caydhka ah maanta baddeenna waxa ugu badan baa laga helaa laakiin waxaa nagu adag inaanu uga faa'iidaysana sida ay tahay waan rajaynayaa in mashruucan kalluumaysiga lagu daro barafkii yaraa ee jajabnaa iyo qaboojinta si oo ay hadda kalluunkaan isticmaaleen la keeno ee xeebta lagu soo daadiyo oo doon korka ka furan oo feebar galaasa lagu soo qaadayo oo shidaal dhexdeeda ku daadsan yahay oo isagoo qaysay xeebta lagu soo tuur haddana xeebtii lagu sii gorgortamayo oo meel kale la dhigayo caafimaad darrada qayb ka tahay laakiin doontan oo kale maanta haddii xataa doonyo u shaqeeyaanoo badweynta la dhigo oo lagu soo ururiyo meeshii la doonana waa loo qaadi karaa marka aad baad ugu mahadsantihiin shaqada allah idiin fudaydiyo dadaal intaa ka badan ha la sii sameeyo doonyaha waaweyn keliya ma xataa kuwa yararka ah ay qaadanayaan baxaarida habeenkii oo kale iyo in iyagana aad ku dartaan hadda kuwa halkan yaallo oo kale marka aad baad u mahadsantihiin